الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد waxaan la hadlayaa bulshadayda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto fariintani hadii aad muhiim u aragto gaarsii cid walba intaad awoodo caalamka intiisa kale markaad mataarada aad eegto rixalaadkooda way ku raaxaystaan ujeedadii Ilaahay ugu talagalay ayay ka helaan Soomaalida haddaynu nahay rag iyo dumarba waa kadeedanahay waxaad arkaysaa qof miisaankii lagu haysto qof diyaaradii laga reebay qof gunuunacayo ciddii soo cuslaysay oo u soo dhiibtay qalabkan hoosta ka habaaraya ayaad arkaysaa dhididsan kadeedan kurbaysan ayaad arkaysaa waxaan xogagaal u ahay culimo waaweyn oo Soomaaliyeed oo aan aqaano oo inta la yiri la raray culimo la raraaba inta la raray diyaaradii ay sababteed uga tagtay waxaan xogagaal u ahay dhalinyaro yar oo xitaa aan murqo ay boorsooyin ku qaadaan aan lahayn inta la soo raray oo amaano loo soo dhiibay garbihii ay kala baxeen diyaaradii ay ka tagtay lagana yaab inuu depression ku dhacay arrinkaasi waa arrin in ay culimadu minbarada uga hadlaan mudan saxaafadu inay telefisyoonada iyo social mediaha iyo joornaalada inay uga hadasho mudan weeye waa arrin in laga baahiyo BBC-da iyo Voice of America iyo meel kasta iyo kuwa kasta in laga sheego mudan weeye sidaa daraadeed walaalayaal nabiga wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam la darara wala dirara aqli gal ma aha tusaale yar aan idin siiyo gabar yar oo alaab amaano lagu soo raray oo xamar ka soo dhooftay oo Turkiya timid alaabtii dhalinyaro waxbarasho gobolada Turkiga wax ka dhigta ayaa loo wadaa kareemka ka uge diraca ka uge baatiga saayeel imaartay buugan uu ka tagay sida ardaydii markay la xiriirtayna nin walba wuxuu leeyahay inaan gobolka ka imaado Istanbul imaada ka qaalisan waxa la isoo dhiibay sida darada iska tur wixii inta qof ay diyaaradii iyo tigidhku ka khasaaray tiram ma leh waxaan filayaa inaad tusaalooyin badan oo kuwa ka badan aad haysaan idan mushkilada waa mushkilo bulshadeed weeye waa mushkilo uu mujtamacu leeyahay yaa laga sugayaa inay wax ka qabtaan hal la balwareeyo dadka hal la wacyi geliyo qawaaniinka socdaalku ma qabo waa mamnuuc in aad alaab adigu aadan lahayn aad qaado wax alla wixii ka soo baxana hadhow amaanay ahaydoo waa la ii soo dhiibay laga yeeli maayo mataarada 5 daqiiqaba waa lagu celceliyaa boorso aadan lahayn ha qaadin alaab aadan lahayn ha qaadin ayaa lagu celceliyaa marka mujtamacayga Soomaaliyeed intaasaan la wadaagayaa maanta anu waxaan go'aansaday waligay inaanan DHL baa shaqeeya boostaa shaqeysa cargo baa shaqeeya siyaabo kala duwan baa wax la isu gaarsiin karaa laakiin waxaan go'aansaday inaanan waligay buugba Allah ka dhigay inaanan qof ibn aadam oo safraya aanan ku cuslaynin waxaan rajaynayaa adiga iyo inta aad gaarsiin doontaba inay go'aankaasi ku saamoobaan uhibbukum fillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh